ما شاء الله صاحبي sida darkaysaan labada sharaab ee quruxda badan ayaan maanta idin soo gudbin doonaa iyo sida loo sameynayo labadan sharaab iyo walibana sharaabo kale oo aan soo dayn doonaba waxa aan diyaariyay maalintii Ramadaan ka horeysay oo saambal ahaan u diyaariyay laakiin maanta ayaa Ilaahay qadaray inay idin soo gaaraan daasho wacan nagana raali ahaada بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي دعوة يا لدي لهانتين بكسور دوادا channel كوم السميرة channel كتاد كعصب تاي سبسكرايب هذا ذرنو لتشوفتينا share like and comment إن شاء الله كصبيحية دمانتين أصحاب تايدا كحولان channel كا يا أصحاب تعصبين نقصو بيرتي يا كحولان دونا إن شاء الله وحن هاي عافيمات من دمانتين دي رجينيا رمضان كريم رمضان مبارك ayaan idin leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Ramadaan haynagu gaarsiiyo caafimaad maalmahan waan yara mashquulay aad baan u soo dhaweynayaa dhammaan asxaabta channelka ku cusub waxa kale oo aan aad u jeclaysanayaa in aynu Ramadaanta khayraadkeeda ka faa'iideysano insha Allah Ilaahay hayna gaarsiiyo Ramadaantan iyo Ramadaana kale oo badan ba fadligeedana kuwii ka faa'iideysta Allah haynaga dhigo waxa weeye waa bishii Quraanka قرآن بدن إن شاء الله إلا آخريو أيان دمانتين برجينيا إلى هينينا أودسيو إن حنقول هذا وبشي دم بدافكا وبشي الرحمة وبشي لسكو حريني النارتا إلى هين تباود هينوسيو وإلى هي كويسون كودا كاقبلو الله هينا قديقو إن ما توحين ديارنينا إنت كسكو شرابين ديارنينا كل رمضان تا دي شرابة دي أفريقيا لا ديارنيا وحد ديارنينا cuntooyinkii lagu afuraayay suxuurtii waxyaalahaas oo caafimaad noqdadkana u leh insha Allah ayaan diyaarin doonaa sharaabkeena ugu horeeya insha Allah ayaan maanta diyaarin doonaa ilaa dhowr sharaab aynu maanta soo koobaynaa sharaabo kalena waan ku xigsiin doonaa insha Allah marka waxa weeye sharaabkeena ugu horeeya sharaabka halka idin ka muuqda saad arkaysaan mishmish baa loo yaqaan Soomaalida kulli mishmish bay u taqaanaa Carabta qudheeda mishmish bay u taqaanaa waxa weeye mishmishkii oo maanta sidaas ah marka isagoo sharaaxa ama isagoo la soo qalajiyay isagoo caadiyana halkan biino yaala kulli dadkan sawirka waxba ka arkin xaqiisan baad ka arkaysaan waa sharaabad fiican sharaabada haraadka biya ayuu ka mid yahay kulli qof markuu maalinta dhan soo soomana wuxuu baahan yahay wax nafta qaboojiya sharaabaduna dhowr nooc weeyaan waxa weeye marka afur kala sameynayo sharaabada qaar smoothie bay dadka qaar jecel yihiin oo sharaabo smoothie way soo gelin doonaa insha Allah dadka qaarna sharaabo waxay jecel yihiin jilicsan marka insha Allah sharaabada jilicsan baynu horeysiin doonaa inagoo hadaynu ka gaarnana qaybeynu sameyn doonaa hadii kalena maanta insha Allah waan soo wada gelin doonaa intii aynu ka gaarno maxaan ku mar walba inaan fiidiyowga aad inoogu dheeraan baynu ka dadaalaynaa haddaynu aragno sharaabkeena horeeya apricot baa lagu yiraahdaa ingiriisi carabigana waxa lagu yiraahdaa mishmish Soomaali kale mishmish baa lagu yiraahdaa wax kale ma aqaano marka waad goosanaysaa mishmishka waxaad u sameynaynaa waxa weeye in yar baynu ka goosanaynaa bismillaah saasa loo jeexaa muuqt saasaynu soo jeexanaynaa intaynu soo jeexno ayaynu soo yaryaraysanaynaa dhowr jeex baynu ka goosanaynaa aad bay tirantiisuna u badan tahay maasha Allah una fiican yahay asxaabay saasaynu soo jarjaranay wax xogaa yar baynu ka goosanay waayo dee Ramadaan lama gaadhin tusaale ahaan baynu sii bixinaynaa biyo kulul baad ku shubanaysaa biyahaas way karayaan markay biyo kulul baan ku shubtay in kalena ku soo kordhisanayaa marka waxaan sameynaynaa biyaha kulul uu leeyahay ilaa adigu 2 saacadood 3 saacadood adigu yani inta duhurada casarka bad iska sii dhiganaysaa marka ilaa 2 saacadood la yaalo ayaa maxaan ku radaa ayaa sonkorteen iyo waxayna kala aynu ku daraynaa waynu isla arki doonaa waa daboolanaysaa inta uu maxaan ku radaa insha Allah uu maxaan ku radaa soo jilcayo ama uu isku soo dhacayo mishmishkeenu inta isku soo dhacayo waxaynu hadana si sameysanaynaa
halkan waxaa inoogu jira sharaabkeennii labaad waxaa weeye waa ubaxa waxaa la yidhaahdaa saad arkaysaan waa ubaxii sidiisii u qalalan kirkidee baa la yidhahaa kirkidee kolley dad badan way yaqaanaan isagana kirkideegu waxaa weeye waa ubax shaax laga samaysto ood shaax kaga maarmayso sidoo kale sharaab baa laga samaystay keligii isagoo waxna lagu darin ayaad sharaab ka samaysanaysaa only sonkor ama malab wixii aad marba jeceshahay ayaad ku darsanaysaa waxaanu ka dawayahay waa sharaab aada u caafimaad badan kolley meel kasta waa laga helaa baan filayaa meelaha lagu iibiyo alaabooyinka dabiiciga ah oo dhan waa laga helaa kirkideega kolley intiina ogna way ogtahay wuxuu u fiican yahay sharaabkani wadna xanuunka daalka wax badan ayuu dadka ka caawiya xanuuno badan xataa dadka waa uga fiican yahay waa uga dawo markaa maanta kirkideegeena waxaynu ku darsan doonaa halkan waxaa inoo taala xamartii wadankeena dhowr nooc bay ahayd nooc siyaadan oo kale laakiin ka yara bunisan iyo nooc iyadiyo kuuskuusan ah markaa tani waxa weeye xamartan Suudaan baa laga keenaa baan malaynayaa in Suudaan laga keeno saasay u eg tahay waa xamarteena caadiga ahayd weeye carabtuna waxay yaqaanaan xamarta tamarhindiga waa tamarindi waa ingiriisina tamarindi kana waa tamarhindi marka tamarhindiga ayaynu samaysanaynaa xamartu aad bay iyaduna haraadka u geysaa ay aada u fiican tahay sideeda kale waxa weeye waxyaalaha difaaca jirka kor soo qaada mar haddii xaalad corona lagu jiro ilaahay fadliga rabadaanta inagaga kor qaado dee difaaca jirkana waa loo baahan yahay oo la sooman yahay in kor loo soo qaado martaa wataas xamartiiseedina halkaa ku sawiran inaad arkaysaan xamarteena caadiga ahayd weeye xamarta qudheeda iyada sideeda inta la radiyo ayaa maxaan ku dhahdaa iyada qudheeda ama sonkorde ama malab marba kaad jeclaysanayso lagu daraa laakiin anigu maanta inaan si yaroo sharaabood ka duwan sidaas labadaba gaarka loo samaysanay inaan labadoodiiba isku daro oo labadoodaba dee aynu ka helno faa'iidooyinkooda insha allah ayaan samayn doonaa waxaan soo qaadanayaa iyadana madebad baan soo qaadanayaa madebadayda birtaan iska soo qaadanay ubaxeena ayaan kor shubanaynaa waxaa kaloo tanna waynu soo jarsanaynaa insha allah xamarteena xoogaa baynu ka jaraynaa xamartiina markaa intaasan ka goostay waxaan ku dhex ridanayaa ubaxaygii biyo kulul ayaan iyadana sidii oo kale soo qaadayaa waan radinayaa labadan sharaaba yacni maanta waxaan isku soo raaciyey waa sharaabo la radinaayo laakiin tayadoodu aada u sareyso biyo kulul baad ku radinaysaa xamarta si diirku dee inooga dhaco waan garanaynaa sidii loo radin jiray weligeed bay ubaxuna waa saas oo kale isagana waa la radiyaa haddii kalena waa la kariyaa labadaba waad karin kartaa haddii aada isleedahay waa degdegaysaa waxaad samaynaysaa labadoodaba dabkaad isku saaraysaa xoogaa yar ilaa 30 minute markay kuu karkaraan ayaad kasoo dhigaysaa laakiin inagu waan radinaynaa waqti baan iska haysanaa waan radinayaa xoogaa kadib marka ay soo rado ay si fiican isku dhex galaan sharaab aada u qurux badan baa kasoo baxaya aadna healthy u ah caafimaadkiisa sareeyo sidaynu ognahay xamarta waynu ognahay in maxaan ku rahdaa caloosha qashin ku jiro dhan xataa ay kasoo saareyso markaad maanta oo dhan soomanayd ee kulley Soomaali baan hoosaanbuus iyo waxyaalo silsiliid looga badannahay marka dee waxyaalahaas oo dhan saliidda iyo hadhow haddana aad dib ugu soomaysay waxaasoo dhan way kaa bixinaysaa waana aadna ugu fiican tahay caafimaad ahaan difaaca waynaga soo sheegnay iyo maxaan ku rahdaa dee caafimaado kaleba way leedahay kaa xamarta ha la ogaada baan leenahay markasta biyaheena waynu ku yaro kordhisanaynaa marka iyadana insha allah intaynoo soo radaysiinu yaro sugaynaa markaan waan isla arkaynaa sidaynuu samaynayno sharaabkii kale qudhiisu isaguna waynoo radayaa iminka waxaynu eeganaynaa waxa weeye 2 saacadood kadib sida inoo noqdeen maxaan ku rahdaa sharaabkeenii ahaa mishmishka kaas uu sii baaba'ay wax yarba kasii jira
sharaabka saa uu bahalkiiba noqdo uu fadhiyaa sharaab saa uu fadhiyo adag sidaa kuma daynayno waxaynu sameynaynaa waxaan yara gelinayaa jeegan sharaabada ku qoosho in yaroo sii yara taagtaagan baa jirta ayaan ku shubay biyahana waan u badinaynaa intaa kuma daynayno sonkorna waan ku darsanayaa sonkor haddaad malab haysatana malabani malabka maanta iga dhan aanan weli soo iibsan malabka ayaa ka fiican inaad ku darsato sonkortaana waan ku daray sharaabkana waan biirinayaa dad arkaysaan biyo badan baan ku biirinayaa biyo badan buu qaataa maasha allah intii yaradeed arkaysiin biyo badan bay qaadanaysaa أصحابي برف يربي كسور دني ساد الكاركيسان شرابكيني شراب كالا يرجع والآد معان بالصباحي وكاس هاد مدة لين بد مدة لين معان بد مدة انتي ردنكم ينادين بينا وينك قدرنا سنكر يرنا قدرنا خلاص مركا ومش مشكي قللنا ولو أدقي شرابات معان halkana sharaabkeenii labaad ayaa isaguna maxaan ku dhahay noogu soo raday aynu radinaynay isagana waa xamartii iyo ubixii saasuu noqday ubixii saasuu isugu dhacay xamartii iyada lafteeda galkii baa ka dhacay waa kuwan meeday xamartii la arkiba maayaba way baabaaday wayna arkaynaa waynu miiraynaa markaynu miirno lafaheedaynu arkaynaa insha allah isaguna siduu soo baxo waynu isla arkaynaa asxaabe shaandhada yar ayaynu soo qaadnay taasaynu ugu miiraynaa saasaynu miirista kusoo dhammaynaynaa dhammaantood wakaa asxaabay saad arkaysaan xamarteenii iyo kirkideegii waynu soo wada miirnay waxaynu ku darsanaynaa sonkor yar baynu isagana ku darsanaynaa aduu marba intii aad u baahan tahay sonkor ee aad isleeda way kugu filan tahay ayaad ku darsanaysaa waxa weeye xamartii iyo wixii markaad soo hoosho watay xamartii saas u soo baxay diirkii baynu kaga dhila waanaynu ka soo miirnay markaynu sonkortaa yar baynu ku walaaqaynaa saasuu inoogu dhammaanayaa isaguna maasha allah sharaab aad u badan baa kaaga soo baxay intiisa yarba wax badan ku noqonaysa waana caafimaad badanna way leedahay labaduba caafimaadkooda waynaga soo sheegnay jeegeenaasaynu kusoo shubanaynaa waa jeeg ramadaaniya ilaa ramadaan baa soo gelaysa waa in ramadaan ka muuqataa guriga markay ramadaan soo gelayso jeega ramadaaniga baynu kusoo shubanaynaa insha allah soo buuxsanaynaa barafna waynu kusoo darsanaynaa wakaa saaxiibayaal saasuu inoogu soo baxay jeeg in yar dhiman ayuu inoo noqday keenii kirkideega iyo xamarta isugu jiray maasha allah waa sharaab caafimaadkiisa leh barafna waan kusoo dhex riday sharaabada jilicsan baynu de iyagana raacinaynaa kuwii hore smoothie bay haayeen sharaabadana waxaweeye waa sharaabo jilicsan waxaa kaloo jira isaguna waa kan kii hore ee mishmishka labadaa sharaab bay noo soo baxeen mishmishkii iyo kirkideegii aad baan idiin salaamayaa saaxiibayaal aadna waad mahadsantihiin maanta kamaradayda waxbaa ka yara qaldan iga raali ahaada waxa weeye
way gacan ayadan ku hayaa gacan waan ka shaqaynayaa meeshii aan suuli jiray bay xogaa kasoo yara dhacdhacaysay markaa iga raalli ahaada aad baan idiin salaamayaa channelkana subscribe noo saara like share rabadaan wanaagsan baan idin leeyahay alle rabadaanta caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo dhammaantiin haynagu gaadhsiiyo haynooguna dhammeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu